وعن مركز السحبيان وحلا شيء كستا دتكو هلا يلوقا ذكر دوان أما واحد مركز قار أركتال لوقات معناها هيدا على فهم كريم ما دام الصومالي نهاي muuqaal kan waxaan kugu tusi doonaa shay ku fududeynaya luqad kasta inuu kugu turjumo luqadaada hooyo luqad kasta oo aad aragto tusaale saaxiibka ama saaxiibada carabi ay kula sheekaysanaysaa carabiga erayada ay ku soo dirto ayaa luqadaada hooyo u bedelanaysaa ama post ayaad ku dhex aragtay Facebook ama meel kale ama shay kale oo English ah ama Chinese ah ayaad aragtay luqadaada hooyo ayaa lagu bedelayaa haddaba taas ayaan muuqaalkan kugu tusayaa ee diyaar u tahay adiga inaad muuqaalkan daawato ila sii daawo 2 daqiiqo ay soo socotaan waxa saaxiibayaal tag Play Store-kaaga kadibna soo degso application-ka loo yaqaan Chat Translator application-kan uu yaraan waxa soo degsaday dad gaaraya 1 milyan sida halkan aad wajidaan application kan soo degso magaciisana waxa loo yaqaan Chat Translator waa saaxiibayaal taabo open markaad open taabato waxa isug intuu application ku soo kacayo markuu sidan soo baxdo turn on markaad taabato dooro ama fur allow permission dib u laabo mar kale turn on taabo kadibna install service dooro kadibna application magaciisa waa kana Chat Translator ayaa la tahaye on day kadibna okay taabo dib u soo laabo mar kale dib u soo laabo mar kale dib u soo laabo fariimahan sida loo isticmaalo ayaa lagu barayaa hoos iskaga deji si isticmaalka uu noogu shaqeeyo fur buttonkaas markaad buttonkaas furto xayisiin ayaa ku soo gaari doonto xayisiintaas way yara fududahay back up taabo ama close iska taabo marka sidaas sameeysa kadib halkan dooro luqadda arabta in wax lagu turjumo af Soomaali ayaan nahay maadaama Soomaali aan nahay af Soomaali ayaan ku hadalnaa sax halkan ayaan ka dooranayna luqadda Soomaaliga ah maadaama ay tahay luqadeena luqadda arabta in la turjumana waa luqadee waa English tusaale English ayaan halkan ka dooranayaa marka sidaas sameeyo kadibna dib ayaa u laabanayaa hadda haddii application-ka aan ka laabto calaamad yariis ayaa halkaas uga jeedaa oo soo baxday calaamadan waa turjumaan haddii tusaale messenger aan dul saaro waxay ii soo saari doontaa sida u jeedinba rasuul macnaha messenger waa rasuul si kale aan u dhigno mararka qaar macnayaasha ayaa laga yaabaa inuu Soomaali si kale kugu sheego tusaale hadda ereyga clock dul saaro clock hadda dul saaro wuxuu ii soo saarayaa ereyga clock inuu macnihiisu yahay saacad hoos aan u laabto bal ka war haddii fariin WhatsApp-ka lagu soo diro tusaale fariin ayaa WhatsApp-ka lagu soo diray calaamadan hoos soo jiid fariinta dulgeey how are you sidee tahay English-ka how are you ayaa nala soo diray waana loo turjumo waxaana loogu turjumay sidee tahay how old are you ayaad fahmi weysay calaamadu waa tana ee soo jiido labada dhinac meesha rabta ay aadi kartaa how old are you dulgeey meeqa sano ayaa jirtaa ajiib carabi hadii lagu soo diro af Chinese hadii lagu soo diro sidaas ayaa sameynaysaa oona hadii wax aad turjumaysa carabi yihiin waa inaad halkan carabi ka soo dhigtaa halkaas waa inaad carabi ka dhigtaa waxa turjumaysa hadii Chinese yihiin waa inaad Chinese ka dhigtaa halkan shayga aad u turjumayso luqadda lagu turjumayana halkan ayaa ka bedelaysaa Soomaali iyo waxa rabta ayaad ka dhigan kartaa suulo wanaagsan saaxiibayaal adiga muuqaalkan daawanaya waxaan isleeyahay waad ka faa'iiday farsamadan labada saaxiibadaada iyagana si uga faa'iideystaan meesha way ka bixi doontaa ayaa isleeyahay luqadda ma fahmi kara sababtoo ah adoo farsamadan heli kara waxaan ku rajeynayaa gool wacan